Okay, asxaabta kusoo dhawaada casharadeenii Excelka ahaa aa kusoo dhawaanaysiin. Waxaan rabnaa inaan maanta fiirino financial analyze tool inaan fiirino oo la dhaho Goalsigal. Waxaana ku fiirinaynaa productyadan. Hadda productyadan aan gadaa waa productyan DC waaye maaragtay CL, KMBB, these are products. Unityadaadana unit sell price kana waa kana xabadii 56 aan gadnaa. Unit sold so far waxaa la gaday 76. Unitkan 129, unitkan 88. Intaan waa kasoo xarootay. Intaan markaan gadna intaan kasoo xarootay. Percentage kana waa oo contribution percentage oo mid walbeeto 18%. Lacagtaan hadda totalka 18% waxay ka imaatay DS, 43% waxay ka imaatay ZL kan 32% waxay ka imaatay KN, 7% ugu yar waxay ka imaatay 33 because waxaan gadnay only 22 units. Goalkeena waxaa waaye marka sanadkan ama bisha soo socoto goalkeena waxaa waaye inaan samayno 33,000 revenue ah. Mana rabno inaan introduce karayno new productyadan aan haysano pricekooda u saan yahay intaan aan gadnay aan waxaan rabnaa 33,000 revenue inaan generate karayno. Haddana waxaan generate karaynay 23,621 this month. 23,621 fiir marka waxaan isticmaalaynaa goals. Waxaan select garaysanaynaa meesha aan rabno inay 33 ga noqoto soo ma aan select garaysanaynaa. Kan direct tabka tegaysaa what if analysis halkaas aan click garaynaa scenario manager marna ma goals aan la soo baxaynaa windowgana noo soo baxay. D9 uu select garaysta waa cellka aan set garaynan. Cellkaas waxaan rabnaa value inuu noqdo 33,000. By changing maxaan bedelaynaa marka waa idin sheegay new product ma rabna inaan introduce karayno soo ma laba waxaa ii bannaan unityada aan gadaayo inaan badiyo oo aan more units aan gado waa option, amaba unit sell price inaan qiimaha ku kordhiyo customerska si aan ku gaaro targetkaygana waa option. Those are the two options I have. Marka hore waxaan fiirinayaa unitkana kana ugu unit yar, BB ugu unit yar. Marka BB-gan imise units aan gadi karaa si aan u gaaro 33,000. Kenlan wuxuu dhahay goal seek with cell D9 found a solution. Solution noo hel. Solution noo helan waa kana 144 units waa inaa aan gadno. Contribution kana uu noqdo BB ka imaanaya 34% si aan u helno 33,000 oo ah revenue-ga targetkeena ah. Marka Excelka waa maaragtay waa system qofkii barto uu ku raaxaysanayo siyaabaha u manipulate garayn karo financial dacooyinka waxyaalaha you don't need inaa complicated mathematical formulas inaa isticmaalo. Ma u baahni inaa graphs iyo maaragtay aan adeegsado si aan waa very simple aan waxyaalo badan ku samayn karaa anoo isticmaalaya goalsi. Okay, waxaan leenahay mara ma gadi karno 144 ma gadi 22 aan gadnay last month. 144 waa nagu adag tahay. Aan fiirino bal inaan priceka inaan kordhin karno cancel. Priceda unit priceka DS ugu jiibsan waa 56. Asaa isku daynaa marka inaan xoogaa price ku darno si aan 33 ku helo. Meeqaan ku dari karnaa hadda ma ogi intuu noqon lahay inta priceka aan gadaayo kan si aan u helo 33,000. And right now the top of my head madaxayga ma kasoo saari kari
waa inaan sameeyo macnii traayo badan oo lambaro kala bedela halkan si aan final u gaaro waa gas work midaan waaye waa waxa filaysid laakiin we don't have to go through that painful waxaan isticmaalaynaa goal seek okay still waxaan rabaa targetkayga waa 33,000 markaan selka aan rabo inaan bedelo waxa waaye pricekaas aan raba inaan jakareeyo I want to check up the price customerska inaan priceka ds-kan inaan kor u kordhiyo meeqaa laakiin ka dhigi karaa I don't know let's do it click okay solution soo hele solutionka soo hele maxaa waaye wuxuu yiri priceka ds waa in laga dhigaa 179 still unitska waxba iska bedela 179 waa in laga dhigaa si loo helo 33,000 unit priceka waa inaan ka dhigaa percentageka oo kasoo xaronayo revenuega ds-kana 41% waa inuu noqda kor u booda asaga totalna waa 33,635 waa inay kasoo xarotaa si loo gaaro loo helo 33,000 customerka marka inaan 179 aan ka siiyo waa no ma rabo I can't do that marka cancel 56 baa lahaa inaan 175 no it's not gonna happen okay waxaan ku noqonaynaa goalsigeenni waxaan adeegsanaynaa oo aan rabnaa still 33,000 waxaan rabnaa kan inaan kordhino okay deh 144 waxaa waaye sales peopleka inaan ku qayliyaan rabaa aan ku dhaho I don't care what you guys do waxaan rabaa unitska aad gadaysaan 144 haddaa gadaan lacag aad siinaya lacag aad siinaya commission aad siinaya 144 haddaa wax ka badan haddaa goolkaas aad gaartaan premier leedahay okay deh waa kaas waana safe garaysan kartaa informationkaaga safe aa leedahay ku safe garoobaya isku dhammaad marka goolkaaga meel dhiganaysaa targetkaaga waa 33,000 waxaa rabtaa ds76 la gado the same price ba unitka inta 22 ga ahaa waa inay gadaan 144 units waa inay gadaan isku dhammaatay marka hadda halkan waxaa ku baratay adoo adeegsanaya excel inaa financial analysis aad samayn kartid oo aa ogaan kartid magaratay waxa u baahan tahay ma barayska kor u kicisaa ma unitka aagadii sidaa kor u kicisaa si aa u gaartid goolka markaas adiga aa leedahay goolka rabtaan set up garaysan kartaa unitka badnaan kara productyada kala duwanaan kara adii dukaan weynaaba leedahay kasoo qaad ama meel weyn ama 100 baqaara leedahay mar walba taageeda jira sooma taageed markaa gaartid taageedkaas uniyadii iyo pricekii wixii isku fiirinaysaa marka si fudud hadal badan buuxsh waxaa idin tusay sida loo isticmaalo goalsig waxaa inoo ballanah markii aan waqti helo aan idin sameeyo annada cashar oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo